kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah taageerayaasha farmaajo oo wacdara dhigeen kadib markii ay bilaabeen qorshe yaab leh oo la xiriira dhismaha guri cusub haddaba halkuu maraya dhismaha gurigaasi dowladda federaalka Soomaaliya Imaaraadka waxa ay kala wareegtay lacag ku dhow $10 milyan iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan sidee ayuu noqon karaa xiriirka Xasan Sheikh iyo dowlad goboleedyada qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada ee wararkan ku baahina janalkan aragtidiina halka hoose noogu reebo muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waynu dhiirigelin haatana ku soo dhawaada qodobada soo faahfaahsan taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilaabeen ololo yaab leh oo qaaraan dadweyne loogu aruurinayo guriga uu Muqdisho ka degayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ololahan oo si weyn uga socda baraha bulshada waxaa horboodaya Cali Yara Cali oo ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir qoraal uu baahiyay wuxuu ku sheegay in qorshahan ay shacabka guriga ugu dhisayaan madaxweyne Farmaajo uu socdo isla markaasna ay wadaan fikrad ururin ku saabsan hanaankii lacagaha shacabku ku deeqayaan loo soo xareynayo sida akoonada bangiyada iyo taleefanadii la isticmaali lahaa iyo shirkadaha qandaraaskan dhismaha gurigaasi qaadanayaan guriga uu hadda degay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mid kira ah oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho balse qorshaha guriga loogu dhisayo ayaa la ogeyn halka uu noqon doono dhismaha gurigaasi geesta kalena dowladda federaalka waxa ay Imaaraadku kala wareegtay lacag dhan $9.6 milyan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay Imaaraadka Carabta kala wareegtay lacag gaaraysa $9.6 milyan oo ay xukuumadda Abu Dhabi ugu talagashay inay qayb ka noqoto taakulada dadka ay saameynta weyn ku reebeen abaaruhu xilli ay xaaladda abaareed ee dalka ka sii dareyso munaasabada ay lacagtan kula wareegtay dowladda Soomaaliya ayaa waxa goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasiirka maaliyadda oo la wareegay lacagtan gudoomiyaha bangiga dhexe mas'uuliyiin kale oo ka kala socday labada dowladood Rooble oo madasha hadal kooban ka jeediyay ayaa dowladda isku tagay Imaaraadka Carabta uga mahadceliyay kaalintooda ku aadan gurmadka shacabka Soomaaliyeed wuxuuna intaa ku sii daray in tani ay qayb ka tahay dadaalkiisa dib u hagaajinta ee xiriirka labada wadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waqti geliyay sidii loo hagaajin lahaa loona soo celin lahaa xiriirka labada dal oo xumaaday sanadkii 2018 waxaana tallaabada soo celinta xiriirku suurta gelinaysaa soo laabashada mashaariicdii horumarineed ee Imaaraadku ka fulin jireen Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Rooble wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa isna sheegay in lacagtan lagu shubay bangiga dhexe ee Soomaaliya si waafaqsan sharciga maaliyadda dalka loona isticmaali doono arrimaha gargaarka dhankiisa safiirka Imaaraadka Carabta oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in ujeedadoodu tahay inay ka qayb qaataan daboolida baahiyaha dadka Soomaaliyeed arrintan ayaa imaanaysa kadib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ay fasaxday lacagtan oo 2018 laga xayiray Imaaraadka kadib markii lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle kadib xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa hoos u dhacay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo khilaaf uu soo kala dhaxgalay iyaga iyo dowladii uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddase wuxuu u muuqdaa inuu isbedel ku yimid kadib doorashadii Xasan Sheikh dowladda Imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha Carbeed ee saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya waxaana safiir uu joogaa magaalada Muqdisho kaas oo durbaba kulan toos la yeeshay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya una hambaliyay si kastaba arrimahan oo dil waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maalmo ka hor uu ra'iisul wasaare Rooble uu booqasho ku tagay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta isagoo ka qayb galay aaska madaxweynihii wadankaasi wuxuuna sidoo kale kulamo la soo qaatay madaxda Abu Dhabi halka wali daawadayaal nagala socotaan waa janalka dalka TV Media iminkan waxaanu eegaynaa safiir Tarsan ayaa hadal la yaab leh ka sheegay dalka Kenya danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo hadal ka jeediyay kulan lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Xasan Sheikh ayaa ka hadlay xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Kenya
tarsan ayaa ugu horeyn hambalyo iyo duco u diray madaxweyne xasan sheikh oo mar labaad loo doortay madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Danjiraha ayaa soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya iyo Kenya maadaama uu xiriirkoodu xumaa 5 sano ee la soo dhaafay, wuxuuna ka dalbaday madaxweynaha inuu hagaajiyo arrintaasi si loo ilaaliyo darisnimada iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dal. Madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa, aniga meeshan waxaan joogay 3 sano iyo 5 bilood. Wadanka Kenya wadan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro, sababtoo ah siyaasadda arrimaha dibadda waxbaa lagu qiyaasaa. Waxa lagu qiyaaso dhanka Kenya ayaa number 1 inoo noqonayso. waa mare dhaqaale xoogan ayaa naga yaalo, waa mar labaad dad badan naga joogo, mar saddexaadna xuduud dheer ayaa la leenahay ayuu yiri tarsan. Sidoo kale wuxuu fariin u diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu baaqay inuu safarkiisa ugu horeeyo ku tago magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Waxa kale uu soo jeediyay in dib loo furo xadka labada dhinac iyo ganacsiga, isagoo tilmaamay in faa'iido badan ugu jirto shacabka labada wadan ee dariska ah. Waxaan jecelahay inuu socodka ugu horeeyo ee uu ku baxayo uu ku yimaado magaalada Nairobi, sababtu waxay tahay in la isku furo isku socodka dadka iyo badeecada Soomaaliya ayay maslaxo u tahay, gaar ahaan shacabka, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Si kastaba Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaasad ahaan isku fara saaray sanadii la soo dhaafay, iyadoo xitaa mar la kala qaatay safaaradaha. Waxaana sidoo kale xiisada uga sii daray kiiska badda ee la geeyay maxkamadda ICJ kaas oo ay ku guuleysatay Soomaaliya. وهاجي داوديال يمكن waxaanu eegaynaa sidee ayuu noqon karaa xiriirka xasan sheekh iyo dowlad goboleedyada. Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu la yimaado isbedel siyaasadeed oo dalka ka hirgala, isla markaasna uu wax ka bedelo sidii markii hore wax ugu socdeen. xasan sheekh maxamuud oo mar labaad loo doortay xilka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashada ballan qaaday siyaasad xasilooni ah, isagoo halhees ka dhigtay Soomaali wada heshiis ah dunidan heshiis la ah. haddaba sidee ayuu noqon karaa xiriirka xasan sheekh iyo dowlad goboleedyada? xildhibaan Axmed Sheekh Nuur oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay inuu hagaagi doono xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, kaas oo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa mid aad u liitay. waa sidoo qabay xiriirka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha cusub. waxaan rajeynayaa inuu hagaagsanaan doono, sababtoo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii aad ogtahay waa madaxweynihii ugu horeeyay oo mar labaad soo laabto, ahna oday daljooga, wax badan aan ku tuhmayno ayuu yiri xildhibaanku. sidoo kale wuxuu sii raaciyay waxaa xusid mudan madaxweyne xasan sheekh inuu ahaa dhamaystirihii federaalka markii horeba. Axmed Sheekh Nuur oo wareysigan bixinayay ayaa xusay inay haatan muuqato yidiilo wanaagsan oo ku aadan wada shaqeynta labada dhinac. waxaan rajeynayaa odaytinimada iyo waaya aragnimada aan ku tuhmayno madaxweyne xasan sheekh qeyr badan ayaan ka rajeynaynaa, yidiiladana hadda way muuqataa ayuu sii raaciyay. hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo doorashada madaxweynaha kadib ay Muqdisho ku wada shireen madaxweyne xasan sheekh iyo dhammaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo kulankoodana diiradda ku saareen dowladda cusub iyo wada shaqeyntooda. guud ahaan daawadayaal nageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media. fadlan daawaday aad nagu cusub tahay kamid noqo saaxiibada hel wararka aan ku baahino janalkan. aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya, laagtiinana waa inoo dhiirigelin, waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka janalka dalka TV Media.